halkani waa Boholaha Xargega. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkani waa Boholaha Xargega waa la socon duleedkeeda. Waxaan la socdaa walaashay Marin Xasan Diiriye Goolle oo maanta waxa weeye gaarigeedii ugu wada. Waxaan ku soconaa garoonkii Golo Yeedhay iyo Didinkii ayaan ku soconaa. Waa goor casar ah oo jawigu aad maasha Allah uu degan yahay. Dhulku waa rooban yahay. Maasha Allah waxaana wada wiilaan u nahay habaryar aan u nahay oo dhashay walaashay Faadimo Xasan Diiriye Goolle ay dhashay gaariga nagu wada aniga walaashay Maryan. Waxaan ku soconaa garoonkii Golo Yeedhay. Boholaha Xargegaanu sii marnay hadda wadadii garoonkaanu qabsanay. Waa dhulkii lagu dagaalamay muddada 8 bilood dagaalku ka socday. Intaad jidka sii socotid waxaad arkaysaa meelihii dhufaysada ay ka qorteen ciidamada Somaliland ay ka samaysteen ayaad arkaysaa. Maasha Allah dadka deegaankii way ku soo noqdeen. Dhulku waa rooban yahay waxaa jiifta arkaysaa waa xareed. Garoonka agtiisa waxaa degan geelal barqamaal ayaa degan oo aanu soo mari doono haddii Ilaahay idinka ka dhigo. oo gaari abtiyaasha oo waxa weeye u degan hurun u degan insha Allah markaanu garoonka ka soo noqono ayaanu soo marinaa haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Garoonka meesha geelashu degan yihiin waxbay soo jiraan. Maasha Allah waa dhul aad u qurux badan dhulku jawi degan neecaw nabad raxmaad Ilaahay waxaan la heli karin oo dadka isugu daray markii uu ka dulqaaday cadowgii dul fadhiyay magaalada. Maasha Allah neecaw nabadeed ayaa dhulka martay. Dhulku waa aad buu maasha Allah u qurux badan yahay. Garoonkii diyaaradaha hadda ku sii soconaa. Garoonka iyo magaalada wax saa u badan isuma jiraan. Magaalada way ku muuqanaysaa. Insha Allah garoonkii ayaanu mar dhow tagi doonaa oo dhalinyaro aan badnayn ay joogaan haddii Ilaahay idinka ka dhigo. Marka insha Allah jawigu aad iyo aad ayuu maaragtay u degan yahay. Waxa weeye markaad wadada sii socoto waxaad arkaysaa geelashii wadada qarkeeda jooga oo daaqaya ayaad arkaysaa. Ilaahay nimcada dadka ha u siyaadiyo iyo nabadaas baynu rajeynaynaa Ilaahay inuu sidaa inoogu wado iyo raxmaadkaas roobka dhulka kama qaado. Hadda garoonkii ayaanu soo galnay dhalinyaro aan badnayn baa joogta. wiilkaas waxaa dhalay abtigay baa dhalay ama walaalkay ayaa dhalay wiilka yareen hor socda. Waxaa dhalay Cabdiyaanis Xasan Diiriye Goolle ayaa dhalay wiilka yareen hor socda. Dhalinyarada garoonka ka mas'uulka ah joogta. Isaga ayaana tustusaya oo noo sheegaya. Marka garoonka cidlo waxaa cidina kama soo degayn laakiin waxaa la sugayay madaxweyne Khaatimo inuu ka soo dego diyaar garoob ay ku jireen. Afaafka hore baanu ka galnay laakiin garoonku waa weyn yahay waa ballaaran yahay waa dhulku iska dhul nugaalo waa dhul iska xaaran. Intii maamulka Khaatimo joogay ka hor baa garoonka la isticmaali jiray inkastaan diyaarada ka soo degi jirin laakiin intii Somaliland naga saaray meesha ayaa calamada iyo wax lagu buufiyay oo la yara hagaajiyay. Marka insha Allah dhalinyarada hadda noo sharaxaysa garoonka weyne firdhiya insha Allah way u diyaar garoobayaan dhalinyaradu. Marka waqti yar kooban baanu la joognay. Guriga yar kooban baa meesha ka dhisan aan badnay. halkani waxa weeye lascaanood dusheeda waxa la yiraahdaa waa Didinkii waa Dhuyuxuusho beerihii dhulkii beeraha airportkina waa xaggan uu noo muuqda airportkii lascaanood waa geeli dadka deegaanka la yiraahdo caanadiiqda weligay waxaan moodayay wax sheeka laakiin se maanta ogaaday caanadiiqdu wax jira inay tahay caanadiiqdu waa dadka
lascaanood sidaa ugu weeran weeye dee waa walaalkii weeye aadan xasan diiriyo goolle maxay haytay waxaa naga duubaysa walaashay maxay haytay canab cismaan oo khadiijo diiriyo goolle dhashay walaashay geelan waa geelal fara badan waa geelasha barqamaalka ah in yaroo kooban ku soo dhawow canabay nirgaha in yaroo kooban baa halka geela joogta waa intii irmaanayd waa imise aadanow geel halkan inta irmaan waxa weeye hadda nirgaha meesha ku xareysan waxa weeyaan 38 waa inta irmaan halkan oo qura horweenkii uu maqan yahay wuxuu ku maqan yahay qura dheeri hospital doodibu ku maqan yahay doodibu ku maqan yahay oo uu dhalaya adiga wuu ii sheegay geel waa 120 horweenkuna ma sha Allah waa ilaa geel 200 gaadhaya geelaas waa geeli aabahay weeye xasan diiriyo goolle aabay geelu jeclaa annagu bariga hore waxaan dabacnay aabay inaan geela ka joojino laakiin isaga diiday weligii geela ayuu daba socon jiray geelu jeclaa geelu iibsan jiray geelu uu dhaqi jiray imikana waa ma sha Allah wa nimcada rabbi wuxuu igu oran jiray aabo Soomaalida doolarkeedu waa geel ninaan geel lahayna waa gun kelmadaha soo oran jiray ولا قال مرحبا ويض وحمر عوير هيا القليان ولا تبع عادي ولا وكل واقيلني صمد وقت متى ساعة كان واقيلني متى ساعة صمد هذا واقع لما تعبت لكن هذه اللي سيو دي روب كده ايوه ويقال كلنا يا هي كدو بيجي شمال دوبا لقيس كدو ما شاء الله ما شاء الله وكا وقالي ران حسن ديريا قال انا قال يا كفار قال حدو فاعل ويد ولا صح وحنبورو علامه لما دعت علامه المقلواك علي محمود كودن يا الف ها عليها وحنبورو الف يا لما دعت ها سرين سودي مره الله قروح بدن دجاع waa taqaana ay مشاهي ونعم واينا مين قد تدشي كم ها انا قلب العب بس شاهد كدوي وكاي مكنا لا أرمي لا طاولة ما يكون الله هذا يسوي ولا وهل ويني عصي لا هذا هي حمديني لا تقول ما شاء الله ما لستوي اللي قاعد برياني ولسه مريم قد مريم وقا ما قلت هاي ما موبيل وحقات كل شوطان هلكا سكيل بان هاي